subaxnimadii saaka oo talaado ah ayay lacagta karoonka Norwejiga ah waxa ay gaartay heerkii ugu xoogganaa ama ugu sarreeyay marka loo eego dollarka Mareykanka tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2023. Dollarka Mareykanka ayaa saaka lagu kala sarrifanayaa suuqyada Norway 10.8 karoonka Norwejiga ah halkii dollar, halka lacagta euro lagu sarrifayo 11.48. dhanka lacagta pound ee dalkaasi Ingiriiska ayaa iyaduna lagu sarrifanayaa 13.69 karoonka Norwejiga ah. 6 bilood ee la soo dhaafay ayay lacagta Norwejiga ah waxa ay si isdaba joog ah ugu sii xoogaysanaysay marka loo eego dhanka sarifka lacagta dollarka. Sida lagu daabacay bogga Børsen ee dhanka dhaqaalaha, dollarka ayaa markii hore ahaa 11.5 karoonka Norwejiga ah, taa oo ka dhigan in uu hoos u dhacay boqolkiiba 11.8 marka loo eego lacagta karoonka Norwejiga ah, halka uu sidoo kalena hoos uga dhacay boqolkiiba 8 marka loo eego lacagta euro. Ole Hakon Eek Nielsen oo ah madaxa istaraatiijiyadda lacagaha Nordea ayaa sheegay in kalsoonidii Mareykanka lagu qabay boqolkii sano ee la soo dhaafay ee dhanka bulshooyinka maalgashanaya ay aad u sii baaba'ayso. Waxa uuna intaa ku daray in ay arrintani sii xoogaysatay kadib markii uu talada dalkaasi la wareegay madaxweyne Donald Trump. Mareykanka ayaa sidoo kale wajahaya caqabado dhaqaale oo ka soo wajahay dhanka dalxiisayaashii u safri jiray dalkiisa kadib markii canshuurihii tirada badneed ee uu ku soo rogay dalalkooda ay saameyn xooggan ku yeelatay safarkoodii dhanka Mareykanka ahayna ay iska daayeen, sida lagu daawacay bogga hoteelada laga booking garaysto ee Trivago. Madaxa Trivago Johannes Thomas ayaa sheegay in ay dareemayaan hoos u dhac boqolkiiba 2 jibaaran taa oo ku timid dalxiisayaashii aadi jiray dalkaasi Mareykanka ee hoteeladiisa ku tamashlay jiray. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Shiine.